بسم الله الرحمن الرحيم warmurtiyeed kan wuxuu ku saabsan yahay sida xildhibaan Cabdifataax uu sheegay xeerka hay'adaha dawliga ahayn ee 2019 waxa maanta golaha wasiirada ay ka doodi doonaan hindisa sharciyeedka hay'adaha dawliga ahayn 2019 ee soo gudbisay wasaaradda qorsheynta macnaha ugu weyn ee ku duugan xeerkan waa in wasiirku ay u suurta gasho go'aanka gaarista meesha iyo sifaha hay'adaha deeqaha bixiya u qaybinayaan kaalmooyinka dibadda ka yimaada iyadoo hay'adaha shaqadeeda aan lagu qancin hay'adda aan shaqadeeda lagu qancin lagala noqon doono ogolaanshaha go'aanka wasiirkuna yahay kama dambays annagoo xasuusanna in sanadii 2017 wasiirka qorsheynta laftiisu oo maaragtay Soomaaliland warqad cunaqabateyn soo saaray isla annagoo xasuusanna sanadkan 2019 in maaragtay xoolihii laga dhoofiyay dekada Berbera ay ku xayirnaayeen muddo bil ku dhow dekada Jeddah oo 20,000 oo xoolaha ay ku sigteen in halkaasi ku baqtiyaan marka tani waxay caqabad ku noqon doontaa waa tii uu sharci u helay waxay caqabad ku noqon doontaa heshiisyadii lala galay Soomaaliland oo dhigayay inaan la siyaasadayn arrimaha gargaarka bini'aadamnimo iyo mashaariicda horumarinta iyadoo laga dheeraanayo soo saarista go'aamo ama sharciyo abuuri kara kala fogaansho ama hoos u dhac ku yimaada kalsoonida labada dhinac waxaa xusid mudan in ujeedada heshiisyada laga lahaa ay ahayd in la abuuro jawi sahli kara wada hadal macno leh oo dhex mara xukuumadda dhexe iyo Soomaaliland si looga miro dhaliyo midnimo la isla ogol yahay xukuumadda hadda joogtaa waxa waajib ku ah siyaanbaqaadida ballamihii hore loo galay iyo dadaaladii ku aadanaa soo celinta midnimada iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed waxa waajib ah in laga taxadiro tallaabo kasta oo xagal daacin karta dadaaladii hore u socday si loo baajiyo dhaawac ku yimaada dib u heshiisiin dhex marta ummadda Soomaaliyeed ee jahwareerka siyaasadeed iyo cadaalad la'aantu kala irdheeyeen loona xaqiijiyo walaaltinimo aan ku dhisnayn handadaad agajuglayn siyaasadeed ama sharci taalidkeeda xeerkani waa xeerka golaha wasiirada maanta la horkeeni doono xeerkani wuxuu xoojinayaa falalkii isdabajooga ah ee xukuumaddu ugu adeegsanaysay hay'adaha ka caagan siyaasadda ujeedooyin gaaban oo khatar ku ah nabadgelyada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed waxa aan wada xusuusannahay in bilo ka hor xukuumaddu u adeegsatay hay'adda duulista hawada cunaqabateyntii lagu soo rogay maamul goboleedka Jubbaland oo horseeday dhibaatooyin laxaad leh oo isugu jiro qaar amni bulsho qaar siyaasadeed iyo dhaqaale iyo qaar maamulba madasha xisbiyada qaran waxay dawladda federaalka beesha caalamka iyo shacabka Soomaaliyeed xusuusinaysaa in dalku wali ku jiro xaalad u baahan in laga digtoonaado wax kasta oo keeni kara in qof ama koox ku tagrifasho awoodda dawladda dhexe sidaa daraaddeed sharcigan iyo kuwa la midka ah ee saameynaya wada hadallada waa inaan la horkeenin golayaasha inta laga gaarayo xal u cuntama ummadda oo sahli kara is-aamin iskaashi iyo walaaltinimo ku dhisan ilaalinta xuquuqda dastuurku damaanad qaadayo madashu waxay gabagabadii ugu baaqaysaa xukuumadda federaalka ah in loo xil saartay inay dalka Soomaaliya oo midaysan ay gaarsiiso nabad iyo cadaalad laakiin inaan loo idman marnaba in qaybo ka mid ah la cunaqabateeyo ama la jideeyo sharciyo ka hor imaanaya dastuurka dalka iyo wada noolaanshaha iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed waa mahadsantiin